بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan tacsiye tiiraanay u diraya heladii ka dhasheen asxaabtii xukuumadda iyo khaas ahaan ciidanka dowladda qaranka iyo ciidamada qaranka oo dhan waxaan inamadii aan ku aasaasnay ciidanka dowladda 5 sano ka hor waa inamo waxa ahaayeen jaamiciina waxaan inamo aanu tababarnay inay noqdaan madaxda berito saad u aragtaan xabaalkii lagu wadariday ay markii shaqeynayna saasay saaxiib u ahaayeen marka waxaan ilaahay ka baryaynaa naxariistiisa inuu jannada siiyo inuu jannada firdawsa siiyo samir iimaan marwada waxaan u dirayaa ehelkii asxaabtii iyo xukuumadda iyo ciidamada qaranka oo dhan السلام عليكم. كل نفس ذائقة الموت waxaan ka tacsiyeenayaa qaranka Soomaaliland labada sakaale ka dhintay qoyskoogii iyo asxaabtoodina waan ka tacsiyeenayaa marka asxaab iyo walaaltinimo la yiraahdo laba nin oo walaal ah oo asxaaba oo akhlaaq fiican oo salaad fiican oo mid imaamkii masaajidka yahay labadooduna saaxiibtinimadoodii wataa noqotay inay xabaashooduna isku meel noqoto ilaahay inuu jannato firdaws al-aala geeyabaan ilaahay uga baryayaa ummadii oo dhanna ilaahay samhiye iimaan ka siiyo waxay ahaayeen saraakiishii ugu horeeyay ee loo qaato ciidanka dowladda qoladii ugu horeysay waxay ahaayeen niman shaqo badan soo qabtay inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo iyagana jannatul firdaws al-aala ilaahay geeyo waxaan dhammaan ummadda reer Soomaaliland waan ka taxsadinaa inagana waxay noo tahay tusaale inteena noole hadhay aynu ku tusaale qaadano oo ku samirno oo iimaanna inaga kordho intii dhaawacantayna waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay dhaawacdayo oo ay bogsadaan insha Allah ilaahay inagana samir iimaan inaga wada siiyo waana waxaynu ku xukumanno waa xaq inteena noole hadhay hadana dad islaama waxa weeye inaynu ku tusaale qaadano oo waxay ku samirno oo nin walba naftu intaasay jirtaaye waan dhiman karnaa xilli walba way leedahay moodku iman karaa waxa weeye ilaahay wuxuu nagu tusay inteena nool ilaahay markaa samir iimaan inaga siiyo ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun labada marxuum maanta aynu halkan ku aasayno ciidamadeena dardamiska ka tirsanaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo shaqo adag baynu hayeen maalin walba nafay badbaadinayeen hanti bay badbaadinayeen qaar masquula ku dhacay bay ka soo gurayeen ilaahay samafalkii ay ummadda u sameynayeen samafalkii aakhire ilaahay ha ugu bedelo jannadii firdawsa ilaahay ka waraabiyo dhalinyarada laga warameeyay soo koraysay shaqada aynu haysay shilka shalayta ku dhimatay aynu maanta halkan ku aasayno ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo ergaynu nahay waxaynu leenahay ilaahay ergada naga aqbal ilaahay ergada naga aqbal ilaahay u naxariiso dhaawacii iyaga shalayta ay wada socdeen afarta dhaawaca iyo inta kale dhaawacay cusbitaalka iyo cusbitaalada kale ku jirtana ilaahay waxaanu leenahay caafimaad saraacan ha sameeyo waan ka tacsiideynaya ehelkii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo cawl khayr qaban ugu bedelo taliyaha iyo ciidanka maxaan ku dhaahdaayay dabdamiska guud ahaantoodii ciidamada kale iyo degmada Hargeysa madaxdeeda iyo gobolkabana waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan hayd naga siiyo ilaahayna waxaynu uga baryaynaa naxariista jannada uu ka waraabiyo nafta way dhimanaysaa ilaahay baa maxaan ku dhaahdaay marka horena abuuraya marka dambana ilaahay baa maxaan ku dhaahdaay toobsanayo wata aynu odhanayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa la inoo sheegay inuu qof waliba halka galayo dadkana wuxuuna la gudboon sidii raggii hore u sheegay laqwiga iyo maxaan ku dhaahdaay adduunyadu inaanay la tagin halkaas lagu dambeynaa in lagu taamilo qaato